madhabba inay baala dhimatay xaqiiq ma yahay meydka cusmaan uu helay inay baale tahay maxaa cusmaan ku kalifay inuu yiraahdo markaasi qabiilkeena ayaynu ku aasina dib ayaynu u soo ceshanaynaa maxaase u dambeyn doona markaasi gabadha lagu magacaabo xaliima oo malakashifi doona khiyaanadeeda biguum iyo cusmaan maxaa dhex mari doona maadaama cusmaan uu ogaaday dilka baala inay iyada u sabab ahayd miyaa la gaaray gabagabadii markaasi ninkii ilbaay ahaa sidee ayay noqon doontaa Sofia markay maqasho geerida baala farxad ceenka ayay dareemi doontaa dhab ahaantii xanuun nooce ayay dareemayaan daawadayaasha taxanaha gundhiga cusmaan daawadayaal su'aalaha iyo su'aalo ka badan waxaanu ku soo qaadan doonaa maanta muuqaalkeena fadlan haddii channelka ku cusub tahay subscribe noo saar hore haddii noola joogtayna muuqaalkeena like garay aad iyo aad ayaad noo maasan tahay daawade intaynan guda gelin muuqaalka ka horatana ku saliya xabiibkeena Muhammad sallallahu calayhi wasallam hadeerna si toos ah aynu u guda galna muuqaalkeena maanta ugu horeyn hadaladii goosgooska ku jira ayaanu micnaynaynaa kadib ayaynu guda gali doonaa markaasi su'aalaha isweydiinay ee ugu horeysa markaasi baala miyay dhimatay ayaynu ku falanqeyn doonaa balse marka horeeto hadaladii goosgooska dhexdiisa ku jiray ayaynu soo qaadanaynaa burtii madoobeed horteeda ayay ku soo duntay qalbigeyguna hadeer laga bilaabo waa uu angegay geedkii weynaa ee harka lahaana hadeer waa uu go'ay waxaad ahayd iftiimkii iftiiminaya gudcurkii indhahayga cusmaan oo geeraaraya ayaanu arkaynaa islamar ahaantaasna suuraysanaya baala oo wiifuu saaran wiifcaalkii dhihi jiray islamar ahaantaasina duldulaysa intaa kadibna waxaynu arkaynaa wiilkiiyaa dhashay calaadiin oo qaylinaya dhahayna markaasi hooyo kakac sidaan ha igu sameynin ayuu leeyahay cusmaanna uu qaylinayay waa kuma qofka sidaan sameeyey ayuu dhahayay waa aniga xaaskayga iga dilay kadibna waxaynu arkaynaa gabadhii lagu magacaabay xaliima oo dhahaysa markaasi mudana cusmaan qofka sidaan sameeyey waa marwa biguum iyada ayaana ficilka noocan xumaanta badan ku kacday halka dhanka kalena aynu arkayna ninkii jeerku taay ahaa isagana cawaadaya wuxuuna leeyahay iska keysii daaya kani waa dembigayga maxaa yeelay waan awoodi waayey marwa baala ayuu leeyahay sidii aniga ii soo badbaadisay inaan anigana u badbaadiyo waan awoodi waayey ayuu leeyahay halka baala markii suquud la geeyay markaasi meydkeedana Faadima gabadha lagu magacaabay ka dhaadhici laada markaasi inayba geeriyootay hooyadeeda calaadiin u dhahayeen warkeena markaasi ugu dambeynayno isku diyaarina markaasi aaska marwa baala cusmaanana meesha soo istaagayo oo dhahayo halkani lagu aasimayo marwa baala ee waxaa lagu aasiyaa qabiilkeena waana inaan xoreynaa qabiilkeena halkaas ayaana markaasi dhulka iyada u qalmo in lagu aaso taasoo ka dhigan inuu cusmaan hadda kadib u dagaal bixi doono isla mar ahaantaasina cadowgiisa carada hadda hayso uu kala dul dhici doono taasoo keeni doonto markaasi inuu noqdo lama joojiyaan isla mar ahaantaasna wax walba ka hor yimaado burburinaya sida webiga oo kale isla mar ahaantaasina ninka lagu magacaabo Olagaan iyo Altooga iyo sidoo kale Ilbaay iyo rag fara badan ayuu markaasi salfan doona ninka lagu magacaabo Cusmaan wuxuu u joojin doonana ma lahan liana qalbigiisa idil ayaaba dhintayba sidoo sheegayo wuxuuna diyaar u yahay markaasi inuu cadowgiisa burburiyo baalaana meedkeeda halkaas lagu aaso laga bilaabo hadeerna waxa uu leeyahay Cusmaan wax qosol ah iyo sidoo kale wax joojis ah ba xaraam ay agteena ka tahay ogaada midaas aniguna sacan laga bilaabo argoosin baa u noolaa inaan argoosto kaliya ayaa ii cad ayuu leeyahay wax kale oo ii muuqda haweenatii ma jiraan laga bilaabo sacan seef baa hadlays ayuu leeyahay seefteedu kaliya ayaa hadlays marka goosgooska sidaas ayuuba ku soo idlaanaya hadii su'aasha weydiinta mudana waxay tahay markaasi la hada hal xiraala ah baala ma dhimatay horta filimku ma ahan filim iska caadiya oo hada boosdag uu alifaya ma ahan waxa jira filimka taariikh weeyaan haddana waxaa jira waxyaabo laga maarmaan ah boontiye la taaban karna jiraan sida geerida baala oo kaleeto baala qaab noocan ah oo maysan dhimanin marka waxyaabaha xiisaha lagu yeelay filimka ay ka mid tahay dadka qaar way ogsoon yihiin markaasi laakiin waxa dadka ay kaliya u baahan yihiin in loo sharxo qofka meedka ah marka taasoo kaliya inaad fahantaan ayaa muhiim ah ha u malinina baala inay dhimato marka waxaynu ogeynay in baala lagu gubay oo dabkii lagula shiday qolkii yara ay ku jirtay biguumna meesha isaga dhaqaaqday waxaana meesha ka dhawaa markaasi gabadhii lagu magacaabay Maryam ama Xaliima ama Buyina sidaad u taqaanaba iyadoo dheesayeen arkayna markaasi aad iyo aad maanta horta waxa geeriyoonaysa ay leedahay baala aniguna argoosigii waan helay laakiin
waxaan dareemayaa xanuun kale sida qof aanan aarsan oo kale. markii inankii yaraa ee Ghazi lagu magacaabayna oo dhankaya Cusmaan u cararay. waxaan ognahay marka Bala inay meesha ku jirto iskuna dayaysa inay ka soo baxdo laakiin ay ku guuleysan weyday. waxa macquul ah marka gabadha lagu magacaabo Xaliima inay door weyn ka qaadan doonto Bala badbaadinteeda. xalqada soo socota iyo xalqada xigta ayaan ku daawan doonaa. لأن Bala way suuxday qiici u dul qaadan weysa ka bacdi meesha ku suuxday. waxay u badan tahay inay gabadha Xaliima lagu magacaabo ee door ka qaadan doonto inay badbaadin doonto oo ayna dareemi doonto markaasi waxay ku kacday inay qalad yihiin. dadkana ay ka qarin doonto markaasi nolosha Bala oo ay meel ku xareyn doonto. malawaay midaasi yaa kaloo badbaadin kara. waxaan ogeynay Sofia laftirkeeda inay markaasi u soo baxday gacan ku dhigista Bala. ma laga yaabaa laftirkeeda inay Bala badbaadiso? waa wax macquul ah. iyadoo laftirkeeda waa la qaadan karaa li'anna waxa lagu fikir karaa waxa weeye hore waxay ku tiri Bala intaadan dhiman waxaan ku tusi doonaa wax adiga aad aniga markaasi kugu kalifi doono inaad adiga markaasi aniga jilbahaaga iyo dhimana aad ii jilba dhigato oo dawladda ku idma aad rukuucday leedahay. waxaasi oo na dhicin marka sidee Bala ku dhiman kartaa? waa may soo maahan. Bala oo ogaanin ilmahay dhashay inay nool yihiin sidee ku dhiman kartaa? waa may soo maahan. anigu waxaan laba meel ayaan u tiirinayaa. horta naagta lagu magacaabo Sofia muhiim ma aan hadda Bala inay dhimatay in kale laakiin way jeclaan lahayd kaliya inay dhimato cidii doonto hadisho. midda labaad gabadha yar ee lagu magacaabo Xaliima doorkeedu wuxuu nuur ku lahaan kala kiliyate inay badbaadiso Bala meelna ay ku xareyso. waxyaaba noocan oo kale filimkii Arturul ayaa laba jeer ka dhacday hadda ka hor haddii aad xasuusataan. mar Arturul la dilay isla mar ahaantaasina dadka magaalka loogu galshay faraantigiisii ayaana markaasi waxaa la geliyay dad xasuusataan gacan qof kale oo meyd ah. qofkaas ayaana meesha ku gubtay. taxanii Salaxadiin hadaad daawateen seasonkiisii koowaad sidaas oo kale u ahaa. Karate King oo Salaxadiin aysan isku fiicneen ayaa badbaadiyay. haddana sidoo kale gabadha waxay ku qasbantahay inay badbaadiso meyd kale ayayna meesha dhigi doontaa si markaasi loogu maleeyo inay Marwa Bala dhimatay. haddaba tabtii Sofia hore ay u sameysay ee gabadhan yari ay ku qaladay dadka ugu qaladay meydkana Cusmaan ma fahmi karo wajiga laakiin calaamad buu iska qaatay sida fargalkii ugu jiray inay gubato kaliya ayuu arkay wuxuuna u qaatay inayba dhimatayba. marka taas ayaa kalifayso inuu Cusmaan aamino in Bala ay dhimatay. laakiin waxaan u badinayaa gabadha lagu magacaabo Xaliima inay noqon doonto qofka badbaadin doona Marwa Bala meeshana ka saari doona. laana Cusmaan markuu meesha imaanay waa maruu guriga u zaid u gubtay kor waxta uu ka feedan yahay. marka sidaas darteed wax walba isku darsoomeen sidaasina uu ku badbaadiyay isdhahay laakiin macquul uu noqon weyn soo ka soo gaari waay. adiguna wixii fikirkeen dhankoosa comments kan wada kartiin shay kaliya ay loo baahan inaad fahantaan ayaana markaasi in Bala aysan dhimanin. Balana markaasi soo laawashadeeda taxana ay dib ugu soo laawanayso ay noqon doonto mid aad iyo aad u xiiso badan dadka dhan markay ka aaminaan inay dhimatay. halka Cusmaanna markaasi xanaaqahay dartiisa uu u noqon doono markaasi qof adowgiisa baabiin doono qabiilkiisa dib u soo cishan doono. ama gabadha Xaliima lagu magacaabo markay dib ugu laawato Sofia ayna la kulanto ayna u sheegto markaasi in Bala la dilay qaabka uu farxaysa ay arki doontaa. waxaana laga yaabaa markaasi inay sir yar ka ogaato naagta lagu magacaabo Sofia. Xaliimana si fudud ayay u ogaan doontaa ka bacdi qofkii markaasi cadow ka dhigataba inuu markaasi cadowgeedii uusan ahayn balse uu waalidkeedii u dhawaa u ahaa. arintaasna goordhow ayay dhici doontaa. tanina waxay ka dhigaysaa markaasi inay iyadana badbaadinaysa markaasi Marwa Bala. marka insha Allah muuqaalka xiga ayaana wixii kale faahfaahin ku soo qaadan doonaa wixii akhbaar ka soo baxo laakiin lama shaacin inay Bala filimka ka baxayso xitaa hadii la leeyahay Bala filimka ka baxayso dhimasho noocan oo kale oo gubitaan uga bixmayso taariikhiyan qof caadi u dhinto buu ahaa si caadi baa loo dilaa marka qofka sharafkiisa laguma dhili karo. aad u baahantiin muuqaalka intaasan ku soo koobaya. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.